الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسكم إن شاء الله تعالى وحكو سابسين حديث كمدة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وقصة أروري في صحيح مسلم. حديث كسي أبا هريرة ورنا يوحان النبي قولي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن اللو تفتح عمل الشيطان. نبي عليه الصلاة والسلام حديث كما حكوت المامية قيب حكو سفينيا قفك مؤمن كا حوغن يسدوغ خير بدن يهي كي ضعفك كتشره. قيبها الضمانة وحكوت المامية النبي عليه الصلاة والسلام وصية وصينا يددك مسلمين تا وحنا بيقول المؤمن القوي مؤمن كحوغاه قوة لشيغيا ومعنى بلارنتي. علماء ضبط وكمية إمام النووي رحمة الله عليه وحليه والقوة في الدين والتقوى والعبادة. قفك مؤمن كي كحوغا عقيدة ديسية دين تيسية عبادة ديسية كاول اسكو الرعسي سيني كاسا خير وأحب إلى الله كخير بدن وألكتي سلقاقتش عليهي من المؤمن الضعيف. مؤمن كعقيدة ديسة أما إيمان كيسة أما عبادة ديسة أما أعماشيسة آخرة أي ليدته. وحيكلو علماء كت المامان المؤمن القوي. المؤمن القوي وكا الرجل القوي هذا أي القوي في رجولته كاسوا معناه لبعض علماء التلمامة وحويان إن قوة الله إطلاقه ومؤمن كحوق بدن له سواء هدو حوق جريدي هاي أو دي جهادي عبادة يكو استعماله، أما هدو حوق عقليادي هاي، أما هدو حوق علميادي هاي، أما هدو حوق عبادي أي باب حوق وقل كرابي لي. marka mu'minka awoodda badan leh ee awoodiisa si khayrka u adeegsadiya iimaanka iyo intaajka iyo wax soo saarka mu'minkaasa ka khayr badan mu'minka daciifka. culimadu waxay yidhahdaan fil asli de quwada waa layna faray waaciddu lahum mastatactum min quwa baa ilaahay yidhi markii gaalada iyo jihaadka laga warramayay waxaa u diyaarsataan wixii xooga a awoodaan oo dhan baa la yidhi. idan xooggu في كل أبوابه هذه خير له أديك سنة يوا خير. وواحد هذا مؤمنك شرهان حق بدن قوة بدنية له خير كوا أديك سنة دوك وحتر بدنية مؤمنك ضعيف كاسكليته يعني سقوا وح بدن قبل كرنين. مؤمنك حقه في علمه وفي إنتاجه وحصصار كيسيا قونتي سي حق بدن تهي dadka ku anfacaya wuu ka fadli badan yahay kii jahliga ku jiray amase kii aan muntijka ahayn ee laziga ahaa kii qofkii iska fadhiyaan wax soo saarka lahayn. waxa duuduub ahaan tilmaamaysaa quwadu xataa quwa albadaniya. qisadii matala nebi muuse ilaahay markuu ka warramayay reer u yimi magaalada meesha dadku xoolaha waraabsanayaan habluu laba hablood ay xoolahoodii cidla ula baxeen maxaa idinku dhacay buu yidhaa xoolaha waraabsan weydeen. waxay yidhahdeen annaga aabahayana waa gaboobay yacni waa daciif maa yaqdir shay annaguna ma gallo raggu meeshan ay isku jiidhayaan ilaa iyo ay ka baxaan. dabeetana wuu u waraabiyey. hadhow inantaasi markay aabbaheed la hadlaysay ee rabtay ninkan in reerka aanu ka tegina si uun loogu hayo
ayaa waxay tidhi yaa abat ista'jirhu ina khayra man ista'jarta alqawiyu lamiin aabbow ninkan shaqaalaysiisa bay tidhi oo ajiir ka dhig ina khayra man ista'jarta alqawiyu lamiin bay tidhi qof shaqo loo dirto waxa u fiican qof xoog leh oo qawiyo wixii qaban karaya ammaanana leh idan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa mu'minka xooggan oo ay ugu horrayso ilaahay rumayntiisa iyo daacadiisa iyo cibaadadiisa iyo acmaasha aakhire ku xooggan dad baa jira sida kale u xoog badan laakiin marka ay timaado cibaadaadka iyo diinta iyo caqiidada ducafa ah kani kow waa qof baabkaasi ku xoog leh ka labaad waa qof bay yidhaahdaan muntij ah qof wax soo saar leh kaasi wuu ka khayr badan yahay mu'minka daciifka ah haddana wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wafii kullin khayr mu'min oo dhanna khayr baa ku jira hadduu qofku iimaan iyo camal la yimi ha laba kala martabo sarreeye khayr baa ku jira waxay yidhahdaan culamaa ilbalaaga masaladan oo kale alixtiraaz bay yidhaahdaanoo waxay ku tilmaamaan qofku intuu war yidhaahdo in siyaabo kale aan loo fahmin ayuu ka ixtiraazaa مثلا إلهي القرآن كوحو كويري لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا مص النبا إلهي يري كوي فتح مكهر تدحولها بحيات دقا الله ما يدين توسوها القمي كوا سا درجة سرية وفتح مكة وحي كدن بي وحي مركاي السلامية وحقبطيميان وحد وترسيس الهين هداد سيدا وفهم الهيد ويقلدم الهيد لكن إلهي بكسي جوابه وحولي وكلا وعد الله الحسنى لما أنتو إلهي باوية بوهي وناق لبضوا بوناق بيلي سيدا وقيد مثلا قصة النبي داود يا نبي سليمان وحكمي مركا إلهي تلمامي وحولي وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان بإلهي waxaa xustaa nebi daawud iyo nebi sulaymaan markii ay xoolihii beerta galay xukumayeen waxa ilaahay ku tilmaamay fafahamnaha sulaymaan nebi sulaymaan baanu fahamsiinay nebi sulaymaan baa la fahamsiiyey daawud wax garan maaya miya maya si aan kaa looga fahmin baa ilaahay yidhi wakullan aataynaa xukman wacilma dhammaantood waxaanu siinay baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala xukum iyo cilmiba labaduba dhammaantood way lahaayeen آيات كلا إلهي لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولو الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى على كل نحن نوصعنا وفي كل خير إني تلماميسو مؤمن كإيمان صحيح لقاها لا طاعد سليمي كل بين خير كسوغيني لكن markay timaado mu'minka in classification lagu sameeyo in la kala sooco inuu ka qawiga iyo ka khayr badan yahay ka daciifka abu nabigu tilmaamay alayhi salatu wasalaam qaacidada markuu nabigu sheegay ayuu wuxuu inoo tilmaamayaa dardaaranana siinaya dardaarankani waxa uu sheegayaa wixii qofka mu'minka qawiga ka dhigi lahaa maxaa qofka mu'minka xoog u yeelaya wuxuu nabigu yiri kow احرص على ما ينفعك وحد كد داشا وإلى لسا وحك وأنفعيا نلاشا إنو تشوغنو بني آدم كو وقت اسكوميدو هايستا وقت اسكوميدا انت بدن دادكو لحدان شير كونتون شير تدواتن شير ميلا وسوى دا قادا لكن ميراها يرات كي دوني دا كاكا تاقان iyagoo isku waqti noola waa kala nooc sababta uu kala noociyana waa masaladatan amalka bini aadamku qabta waa saddex qaybood mid oo inuu yahay qayb ku anfacaysa qayb wax tarta aakhiriya adduun manfacuun leh iyo inuu yahay qayb wax dhibta aakhiriya adduun ma dhibaato kuugu jirto iyo inuu yahay qayb aan manfac iyo madaro toona lahayn laba inaad ka tagtaa marka la raba midna qaadatid wuxuu nabigu leeyahay ihras ala ma yanfa'uk waxad ku dadaashaa waxa ku anfacaya
waqtigaaga iyo maalintaada iyo xooggaaga iyo cilmigaaga iyo aqoontaada iyo hantidaada iyo garaadkaaga iyo waxaad awood leedahay oo dhan waxaad ku isticmaashaa waxa ku anfaca. taa macnaheedu waxa weeyaan waxaad ka tagtaa wixii ku dhibaya ka tag. waxaad kaloo ka tagtaa waxaan macnaha samaynaynin. dadka in badan oo ka midi waxaabay dhib ku ah waqtigoodaba, marka waxay raadinayaan waxay ku dilaan, waxay ku madadaashaan. madadaaladu waa wuxuu rabo qofku inuu waqtigiisa ku baabi'iyo, xooggiisa iyo xoolihiisa iyo caqligiisa ku baabi'iyo, aan adduunkana manfac ku lahayn, aakhirana manfac ku lahayn. adduunna wax kama tarayso waxaan u wadaa, aakhirana wax kama tarayso. qofna isagu wixii dhibayay baabuu waqtigiisii ku bixiyey wax xaaraan oo aan diin ahaan ku bannaanayn oo caqiid ahaan bannaanayn oo ayuu ku bixiyey. nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu ina leeyahay ixris calaa maa yanfacak, calaa maa yanfacuk, ku dadaal waxa ku anfacaya. bitacbiiri ahli lcasri waa waxay yidhahdaan kun muntijan aw kun iijaabiyan, qof wax soo saar le ahaw, qof wax tara ahaw, qof wanaagga qabta noqo. noloshaada maalintii waxaad qabanaysaa waa inaad isweydiisaa ma manfac adduun buu kuu leeyahay mise manfac aakhiro kuu leeyahay. haddaad waxa labadaa ka dhex arki weydo waa wixii lagu yidhi ka tage ka tag. haddaad manfac adduun ka weydo ama manfac aakhiro ka weydo waxtar ma leh. sheekada ugu badan ee soomaalidu ka sheekaysaa waxtar ma leh. siyaasadda iyo qabiilka iyo reeraha iyo waxa laga sheekeeyo oo dhamme waxtar ma leh. kubadaha iyo cayaaraha iyo wax la daawado oo dhamme waxtar ma leh. wararkan habeen iyo maalinba la dhegaysanaya la wado intooda badani waxtar ma leh. wax badan aan waxtar lahayn baa dadku waqtigiisa ku qaada. nabiguna wuxuu tilmaamayaa min xusni islaami almar'i tarkuhu ma laa yacniih. qofka muslimkaa islaamnimadiisa wanaaggeeda waxaa ka mid ah isagoo ka taga waxaan macno u samaynaynin. tarkuhu ma laa yacniih, waxaan isaga khusaynin. waxaan ku khusaynin waxna ku taraynin. maanta dhaa haddaad ka waranto laba gaaloo meel isku dilay kii la dilay, adiga waxba ku tari mahaya. warkooda iyo akhbaartooda waxba ku tari mayso. akhbaarta siyaasiga dad ka sheekeeya inteeda ugu badan leh waxba ku tari mayso. waxyaabahan ka sokeeya iyaguna cayaarahan iyo madadaadadan iyo whatsappkan iyo snapchatkan iyo waxa la wadoo dhamme akharuhum waxbaabay dhibaan aakhiriya adduunba. inta aan aakhiriya adduun manfaca ku lahaynina aan wax dhibinina waa inaan adduun iyo aakhiratoona manfac ku lahayn. marka wixii aan manfac ku jirin mid adduun iyo mid aakhiro waa inaad ku xisaabtantaa inaad waqtigaaga iyo xoolahaaga iyo xooggaaga iyo caqligaaga inaad gelinin. sidaa awgeed buu nebigu wuxuu ina leeyahay ixris calaa maa yanfacuk, wixii ku anfacaya ku dadaal. intaa kadib buu nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam wastacin billaah, ilaahayna kaalmayso. ilaahay kaalmayso macnaheedu waa in qofka mu'minka ahi wax kasta oo uu qabanayo ama uu ka fakarayo wuxuu rumaysan yahay inuu ilaahay gacantiisa ku jiro. qofka mu'minka ee dhabta ahi quruur kuma dhaco iyo cujb, isla weyni iyo anaa caqli badan iyo anaa karti badan iyo kaama rumaysana. qofka muslimka wuxuu rumaysan yahay ilaahay inuu mar kasta u baahan yahay, mar kastaba inuu ilaahay u baahan yahay. saa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ina baray mar kastoo inuu ilaahay ishortaagna inaynu akhrino iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin. ilaahu adaanu ku caabudaynaa keligaa baanu kaa kaalmo dalbaynaa. qofka muslimka ahi mar kasta baahidiisa waa qof ilaahay u bandhiga, waa qof muujiya inuu yahay addoon daciifa, waa qof rumaysan laa xawla walaa quwata ila billaah. wuxuu rumaysan yahay waa kanzun ayuu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. cabdillaahi ibnu qays buu nebigu yidhi ma ku tusiyaa kanz min kunuuzi ljanna, khasnadaha jannada ka mida makuu sheegaa? faqultu balaa yaa rasuul allah, haa buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow. xadiidka saxiixayn ku yaal nebigu wuxuu ku yidhi markaa laa xawla walaa quwata ila billah weeyaan. laa xawl xeelad malihi iyo awoodtoona ilaa billaahi mooyaane, ilaahay oo aan gargaarsada mooyaane
anigu xawl iyo xeelad iyo quwo iyo itaal midna ma lihi qofka muslimka ay markaa waa qof baahidiisa ilaahay u bandhiga nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabigii uu jeclaa ee mucaad ibnu jabal wuxuu ku yidhi yaa mucaad wallahi innii la uxibuk ilaahay baan ku dhaartay mucaada waan ku jeclahay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasuu mucaadna wuu yidhi ilaahay rasuulkiisii oo arguna waa ku jeclay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu yidhi kelmadaan ku barayaa ee salaad kasta dabadeed ha ka tegin mar kastoo aad salaad tukato farala erayadan ku dhawaaq erayadu maxay yihiin waa erayada adkaarta aynu akhrino markaynu salaadaha tukanoyn allahuma acinnii calaa dikrik wa shukrik wa xusni cibaadatik wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam mucaad ibnu jabal waxaad tidhaahdaa ilaahayow iigu gargaar xuskaaga inaan ku xuso aanan ku ilaabin inaan kuu mahadnaqo aanan kaa gaaloobin iyo si fiican inaan kuu caabudo ilaahu kaa iigu gargaardhe nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu inagula dardaarmayaa kow ixris calaa maa yanfacak wixii ku anfacaya inaad ku dadaasho waxaan ku anfacayn inaad ka tagto isla markaana inaad ilaahay tala saarato oo ilaahay subxaanahu watacaala aad u tala saarato wax walba wuxuu nebigu raaciyey markaa taa cagsigeeda waxaa dadka u diiday inay wax qabtaan walaa tacjis buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam tacjis iyo tacjas labadaba waa la odhan karaa buu yidhahdaa imaamu nawowi laakiin kasrada caana walaa tacjis ha caajisinku waa maxay qofka bini aadamka laba wax baa ku dhaca bay yidhaahdaan alkasalu waalcajsu bay yidhaahdaan kasalku waa qofku wahsiya cadamuliraada waa qofku aan doonisba lahayn inuu wax qabtaba rabin cajsiguna waa qofkiiyo raba inuu wixii qabto laakiin haddana qaban karila u taagla cadam ilqudra shaqo kastoo la qabtaa waxay dhahdaan labadan shay buu camalku ka kooban yahay inaad waxaad doonaysid iyo inaad awoodid markaasuu camalku kuu qabsoomaya inaad doonaysid inaad qabato iyo inaad awooddo nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu tilmaamayaa inaynan cajsinin dadka badh ayaa wax kastoo ay qabtaan taswiif ku sameeya insha allah berraan samayn doonaa war maanta aad qaban karaysaa maxaa berri camal kale u dhigo maya berraan samayn doonaa wax kasta berru u dhigaya ama maahe brogramyo iyo barnaamij buu degayaa markaasuu leeya insha allahu saasaan yeelaya sanadka dambe qur-aankaan xifdinaya sanadka dambe waxaan rabaa jaamacadda ee balas inaan kaga baxo insha allah waxaan rabaa waqtiga soo socda tijaaradaasi inaan galo waxaan rabaa kutubtaa inaan dhigto waxaan rabaa cibaadadaa inaan sameeyo laakiin afku ka leeyahay waa barnaamij afka ah camal ma gaadhayo isuma bedelayo maxay wax camala isuma bedelayo in wax la bilaangareeyaa ma xuma laakiin waxaad bilaangaraynaysaa waa inuu yahay waxaad awooddo qaban karaysa marka koowaad shay fii maqduurik waa inuu yahay waa inaad qof riyoonaya noqon dadka badh baa day dreaming adoo soo jeeda inaad riyooto maaha waxaanad samayn karayn haddaad iskaga wadwado waa riyo kale uun dadkii hurdaa riyooda dadka soo jeedana qaar baa riyooda oo mar haddaad waxaanad qaban karayn aad ka fekerayso waad riyoonaysaa waxaad balaangaraysay waxaad qaban karto waa inuu noqdaa marka labaadna waa inaad fulisaa fulintu dadka badh baa fulanimo haysaa armaa dadku kula yaabaa armaa si xun lagu eegaa arma shaki unbaaba iskaga soo ururaya dadka badh oo wixii uu qaban lahaa u diidaya armaa lagu idhaahdaa waxaan wuu istusaya waxaan kan buu samaynaya laakiin nebigu wuxuu ina leeyahay ixris calaa maa yanfacak wastacin billaah walaa tacjis marnaba ha caajisin bale nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigii u shaqayn jiray anas ibnu maalik ahaa ayaa wuxuu leeyahay anuu nebiga u shaqaynaya wuxuun baan maqlaa isagoo ku celcelinayoo leh allahuma innii acuudu bika min alhami waalxasan waalcajsi waalkasal waalbukhli waaljubn wadalaci addayni waghalabati alrijaal
isagoo ku celcelinayo le ilaahu waxaan kaa magan galay warwarka iyo walbahaarka iyo tiiraanyada iyo murugada. hamigu waa waxa soo socda uu qofku ka warwaro mustaqbalka oo la madoobaada oo dabeetana qofku warwaro. xusniguna waa wixii ka tagay qofka oo tiiraanyo iyo murugo ku reeba. idan waa laba warwar ama laba walbahaar, laakiin waxay ku salaysan yihiin midna waa wixii tagay, midna waa waxa soo socda. nabigu calayhi salaatu wasalaam labadaba ilaahay buu ka magan galay. wuxuu kaloo ilaahay ka magan galay alcajsu walkasal. waa labadan xanuun aynu hadda sheegaynay. qofku inuu cadami lqudra, inuu wax awoodi waayo, ama in doonistuba ka dhimato. doonistuba inay ka dhimato. oo dadka badh baa wahsiga iyo hurdada mooda inay nimco tahay. waa raaxaysanaya buu leeyahay, deetana wuu jiifaya saa baktiga. waxba nolosha hurda kuma soo kordhiso. qofku waa inuu hurdada seexdaa intuu uga baahnaa uun, intuu caafimaadkiisa ku ilaalinayay, intuu nashaadada jidhkiisa uu dib ugu soo noqonaysay. sida awgeed buu nabigu wuxuu ilaahay ka magan galay wahsiga iyo waxtaryarida. wuxuu kaloo ilaahay ka magan galay bukhliga iyo jubniga. jubnigu waa baqaha. waa qofku markuu wahsado dee wixii uu ka baqaya, dabeetana si aad u sugaysa u leedahay baraad qaban inaad u leedahay ayay iswada fuulaysa. hadhowna waxay gaadhaysaa shaqadii waxaanad qaban karinba. bukhliguna waa wixii oo anfacaagii aan dadka gaadhaynin. anfacaagii oo aan dadka gaadhaynin. wadalaci dayni waghalabati rijaal. waxa uu nabigu sheegayna waxa ka ratibma daynta oo kaa xoog badata iyo bini aadamka oo kaa xoog bata. xadiidkani waxa uu tilmaamayaa markaynu soo duuduubno qofka muslimka inuu qof active, qof nashiita, qof firfircoon, qof raba inuu wax qabto, qof camal adduunyo mid aakhira midun ku foogan, qof aan noloshiisu khasaare noqonin ama waqtigiisu khasaare ahayn ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamaya. walidaalika buu nabigu wuxuu tilmaamayaa waqtiyada qaarkood ayacjizu axadukum buu nabigu yidhi, waar midkiin miyuu kari waayaya an yaksiba kula yawmin 1000 xasana. maalin kasta inaad 1000 xasano shaqaysato miyaad awoodi kari waayeysa? nin raggii meesha fadhiyey baa wuxuu yidhi kayfa yaksib axaduna 1000 xasana. oo midkaayo suu 1000 xasano u shaqaysan karaa, 1000 ajara u heli karaa. qaala yusabixu 100 tasbiixa fayuktab lahu 1000 xasana. dee 100 goor baad subxaan allah odhanaysaa iyo waxa lagu qoraya. subxaan allah intay kaa qaadanaysa? 100 gooroo subxaan allah waa less than 1 minute. ka waran 1 daqiiqo oo noloshaada ka mid ah haddaad 1000 xasano shaqaysan karto. saacaddii misaad shaqaysan karaysa? waxaa meesha taalla markaa nabigu wuxuu leeyahay qofkaasi subxaan allahi yidhaahda ee tasbiixda la yimaada 1000 xasanana waa loo qoraa, aw yuxatu canhu 1000 khati'a, ama 1000 dambaa laga dhigaa. cajsigu dad buu gaadhay inay xataa awoodi kari waayeen inay ilaahay baryaan. ilaahay baryadiisa xataa inay ka gaabsadaan. sawgeed buu nabigu wuxuu leeyahay acjasu nnaasi man cajasa can idducaa. acjasu nnaas man cajisa can idducaa. dadka waxaa u caajisnimo badan dee ninka awoodi kari waaye ilaahay inuu baryo. wa abkhalu nnaasi man bakhila bisalaam. dadka waxa kaloo u bakhaylsan buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qofka dadka kala bakhayla inuu ku yidhaahdo assalaamu calaykum. assalaamu calaykum waa duco. inaad dadka u ducaysad kala bakhaylaysa. ayuha alaxiba, waxay leenahay cajsigu marar badan buu noqdaa jahliga. marar badan buu sababta cajsiga keenta ay tahay aqoon darrada. waayo subxaan allahi haddaanad ajarkeeda garanayni waa aqoon darra ku haysata. aqoon darradu waxay keentaa qofku inuu waxba qaban waayo. hadaad aragto qof idol ah jahlnima haysata. walow uu xoog badan yahay, walow uu dakaagiisu intelligencekiisu uu sarreeyo, walow uu caqli badan yahay,
mar haddaanad muntij ahayna wax soo saaraynin waxay yidhaahdaan nolosha waxaa qiimaha ku sameeya ma aha inaad caqli badantay ee waxa weeyaan bay yidhaahdaan inaad hardware kar tahay nolosha taasaa raad ku leh qof xoog wax u qabta inaad tahay garadka badane hadduu hurdo dhalo waxba tari maayo si kastoo aad daki u tahay haddaad qof laysiyatay qof aan firfircoonayn haddaad tahay garaad bandidu waxba kuu kordhin mayso si awgeed buu nebigu wuxuu tilmaamayaa amaba se aan aayadda qur-aana tilmaamo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qur-aan ku tilmaamay qof dhan oo bini aadam ah oo intuu dembiilo noqday arday u noqday tuke qiyaas inaad tuke arday u noqotid tabardarradu halkay gaadhay saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy fabacatha allahu ghuraaban yabxathu fi lardi liyuriyahu kayfa yuwaari saw'ata akhiih qaala yaa waylataa acajaztu an akuuna mithla hada alguraab fauwaariya saw'ata akhii faasbaxa min annaadimiin in aadamkii walaalkii dilay markuu dembiga geystay walow uu xoog weynaayo xooggaa walaalkii ku dilay uu qabay kadib aqoon darrada haysatay waxay noqotay si uu u galo meydkii walaalkii buu garan waayey ilaahay baa wuxuu u soo diray tuka markaa aqoonta ah in wax la xabaalo baray tuka kaloo dhintay godu qoday oo aasay wuxuu baray markaa in wax la xabaalo wuu halaan halay ama wuu calaacalayo wuxuu leeyahy yaa waylataa acajaztu an akuuna mithla hada alguraab halaagaygiiyow kaalaye ma waxaan ka liitaa ma waxaan ka waxtar xumaaday inaan tukahaasoo kala noqdo idan jahligu tukuu macallinkaaga dhigi dad badan oo maanta soomaaliyeedoo iska fadhfadhiya waxay la fadhiyaan waxay qabtaanba way garan waayeen jahligaa fadhiisiiyey beer si loo qoto ma garanayo wax kale si loo sameeyo ma garanayo aqoon si loo barto ma garanayo jahli baa fadhiisiiyey jahligu markaa dadka wuu dulleeyaa idan aqoontu iyo cilmigu waa min alquwa almu'min alqawiy khayru axabu ila allahi min almu'min daciif wa fi kullin khayr quwada la sheegaya aqoontaa ka mid ah si awgeed ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam inagala dardaarmayaa istacin billaahi walaa tacjiz ilaahay kaalmayso oo isticaanadaada ilaahay kaalmayso hana caajisin qur-aankana ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa in badan baa ilahay wuxuu qur-aanka ka warramaya reer banu israa'iil oo la leeyahay khuduu maa aataynaakum biquwa war waxaan diinkaanu idiin soo dejinnay war si ijtihaad iyo firfircooni iyo xoog uu ku jiro khuduu maa aataynaakum biquwa baa ilaahay leeyahy نبي موسى محا إلهي لي وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها إلهي نبي موسى لي فخذها بقوة سددال هي تمر كتشر تقاضى خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا مركي إلهي النبي يحيى لهد لي وحلالي يا يحيى خذ الكتاب بقوة والنبي يحيو كتابك سي حوغان وقادة بالليل سي جدية سي اجتهاد كتشرو سي الددال يفر فرعوني كتشرتو إلهي كتابك سو قادة بالليل وحا قرآنك إلهي وكسي فينيا دادك وهسك يا عكسك هيا إن استفادة منافقين تطي وهسك إليه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى منافقين إلهي وحكوت المام صلاة هذا وكعا وكوكعا إيغو كسالى إيغو وهسي يعاجس هيو ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى صلاة لما يما دنبا إلهي إيغو حالة كسوغان مويان أيها الأحبة markaad wahsato acmaashu way isfuulfuushaa wixii maanta kugu habboonaa inaad qabato markaad qaban weydo wayse sii kortaa sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa yaa ayuha aladiina aamanuu
ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض وردتك مؤمنين تهم حيد كل عي وهدي الله إذا هذا إلهي تيسا وصباح جهادك وصوكع أثاقلتم إلى الأرض بالله ما حدول كيدن كعسليي يا إلهي إلهي سبحانه وتعالى ما حدول كسقنا بيساره وكعكير ويده أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ما أدون كآخرة كشعلات با إلهي إلهي فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا أيها الأحبة كوا منافقين جهادك كوه سدا إلهي وحكوت المام إن الصفات كمنافقين تكمتي تاسي يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فين صار وحيدا كم إذا بقى إلهي مدتك بعكس قالين يوفر السنة ودبوا الريبية وحيدا هذا دراسات كعلمي جدا حتى عافمات كغلطا ما تشتغل سواحي تلمامين دراسة تلمامين علمي هونغ كونغ يكون سمايين ويدتك هونغ كونغ بارين كسواحي هذين ليزي نسكي وحقبض لا أنت iyo sigaarka bulshada keeba dadka leyntiisa ku badan bay dhahay sigaarka waxa la wada yaqaanaa inuu sun yahay oo boysiyo dadka laayo cagsiga iyo iska fadhiga ka batay iyagu daraasaday sameeyeen qolana 6800 meelaas ay noqotay qolana 5700 maanta waa kuwan yiraahda xanuunada ugu tirada badan ee bini'aadamka ku dhaca waxa keena bay yiraahdaan maxay exercise laan exercise la sheegay inaad boodboodo quran ma waa inaad wax qabato لكن هذا تسكيور رتونا فرديد قف فردية هبين يا معلم عافمات كيسا بخطر كتيرة كقالي نلاش أنا دو حتر كويا لتيه وحصار أنا ديالت وح خطر تجلي يا وحويا المحي أدي عافمات كاجي بخطر جلية ولذلك بقى طبعا ما أنت وحي تلماميان قفكوا إنه نشاط سكيليو ما معان بعد غبطة مسكر بعد غبطة ما كم بعد غبطة ما أنت صعو أنت قبو أنت يعني هو وحقبو fadhigu marka aqligana uma fiicna iska fadhigaan waxba lagu qabanaynin jirkana uma fiicna aakhirana uma fiicna adduuna uma fiicna laziness marka nolosha meel laba wax kaga male ee waxa meesha taala qofka mu'minkii inuu muntij noqdo qof wax soo saar leh inuu noqdo waliga hamoodina waqtigu ku dhaafay dadka barba isle faataka alqatar ka sheegi jireen yani waqtigii ba tagay intaan meesha fadhiyay inta ku hadhay cimriga baa wax soo saar yeelan karta waxa laga yaabaa dadka badheysay oo maanta konton jirbaad ama waxbaad baran karaysaa dad ba konton jirreynta ku bilaabeen culimadii ugu waaweynay dunida noqday ma garanaysid cimrigaagu intuu ku gabagaboobi doono ma garanaysid inta ilaahay adiga chance ku siiyay adiga waxa ku xilka ku saaran wuxuu yahay inaad rumaysato cimrigu wali mutasac baa jira نبي محمد عليه الصلاة والسلام سوى تاين قدرين يوحط المامية إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فصيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها نبقى لها دو قيامه حقا كصوب لا بصاقعه وأدقعنتكو هيسو فصيلة دو حالي جاتي مريد كيرا لا أبقى ليو جاتي مريد يرى أدقعنتكو هيسو هذا تكجر سينكرتين هذا أبقى شبه نبي يقول يا أبقال بير هذا تكجر سينكرتا بير وإنه يدان قيامة بيننا نركين بينو فردنا ولا نوان جبوبي سومالي ده فرتن شركة كو جبوب ده سوما في الصومالي مركو بني آدم كبو حق بدنا مركو جارو أيوة ده هذا نوان جبوبه وحول بوي كذا بعده بني آدم كو عقل كو كجبوبه هذا مان كجبوده أيوة ما تجبوده انت كلا وحبات قبان كرتا انت كلا وحبات قبان كرتا ساوجد بالنبي عليه الصلاة والسلام وحينات المامية قبل الموت إن فرص جرو انت جاردك هالرسالة فرصات هيسطو فرصات وحلقو قبطينات هيسطو واحد يريسان يساوي حوي نغضة واحد يريسان يسامحانه قد شيء ده صدر القرآن أين قيبتها وح كل يرسمه حتى لا وهذا مالك استصدر قيب وقرب القرآن كدمين هذا صدر قيب وقرب القرآن كدمين
waxay dhahaan dhowr iyo 10 sannadood baad ku dhammaynaysaa haddaad maalin kasta sadar qaybto. hadda waa sadar, hal sadar waxay dhahdaan waxqabadku taraakumka biiritaanku qiimaha ku sameeya markanaad qabanayso waxa yaraantiisa ayay kuu muuqanin. haddaad maalintii hal safxa qorto, hal page haddaad maalintii qorto, sanadkii imisaad soo saaraysaa? ugu yaraan 2 buug baad qori kartaa sanad kasta, waayo sanadku waa 365 maalmood. haddaad maalin kasta page qorto macnaheedu waxa weeyaan ugu yaraan buug 300 page ka badan ayaad qori kartaa. laakiin haddaad tidhaahdo ma xaashi aan qoray baa buug noqon doontaa, maxaan xaashi ka qori doona? aqoontu iyo waxqabadku iyo waxtarku taraakumka inay biirtaabay wax ku noqotaa. wax kasta oo biira aakhirka wuxuu tagaa maxay? wax qiimo leh buu noqdaa. taasa waxay keensanaysaa inaad waqtiga waxba yaraysanin. nin wadaada wuxuu ii tilmaamayay jaamacad buu master degree ku qaatay isagoo shaqo kale markaa wada. inta uu gaariga soo socday uu gurigiisa ku sii socda buu dhageysan jiray una cajiladii jaamacadda ah warkeeda inta loo duubo ayuu wuxuu dhageystaa inta maxay uu gaariga sii wado. hadda intaad gaariga gurigaaga jaamacadda inta tagtay gurigaaga ku sii socota inta aad dhageysato ayaad ku qalin jabin kartaa. laakiin waa hadday taraakumto de waa haddaad maalin walba sida tan u dhageysanayso. marka waxaan uga dan leenahay camalku iyo waxqabadku iyo waxbarashadu iyo wardigu iyo wax waliba in la biiriyaabay wax ku noqdaan, in la joogteeyaabay wax ku noqdaan. camalka inaad joogtayso ayuu wax ku noqonaya. ilaahina wuxuu ina leeyahay walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum laclawna in kuntum mu'miniin. war dadka mu'miniintow wahniyuu idinku dhicin, ha niyad jabina, hana murugoonina. idinkaa koreeya baa ilaahay tilmaamayaa haddaa kuwa mu'miniina tihiin. haddaad dariiqa iimaanka raacdaan waa koraynaysaan. xataa markan awooddaadu intaad qaban kartaa ha yaraata, laakiin intaa qabo. sawgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahay waka'ayin min nabiyin qaatala macahu ribbiyuuna kathiir فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. بدنا أنت النبي قاتل معه الربيون معيسى إلا دقال قالين كوا ربي لو نسبي داد إلهي سليبي ومي ضعيف وحيد بسو قاري مي إسديب مي إسدول دقين وحي نغدين داد ولو markaa ha lagaba xoog batee wada camalkii ilaahay intay natiijada ka gaadhayaan. ayuha alaxiba, marka xadiiska kan wuxuu nebigu ku gabagabaynayaa calayhi salaatu wasalaam weer tilmaamaysa ereyga low ah wixii kaa tegey tiiraanyadooda inaanad isku mashquulin. oo wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ha odhanin bal ma haddaan sidaa iyo sidaa yeeli lahaa waxaasaa soo bixi lahaa saasaa noqon lahay. fa ina low taftaxu waxay furtaa low waa camal shaydaan, albaabka shaydaankay furtaa. oo maxaa jira alqadaa walqadar mar hadduu ku dhaafo lama calaacalo. qaar baa waxay yidhaahdeen low kaanuu cindanaa maa maatuu wamaa qutiluu. haddayna la joogi lahayn waa kuwo munaafiqiina waxay leeyihiin muslimiintaa soo dhimanaysa hadday iska joogi lahaynoo nala fadhiyi lahaayeen maa maatuu wamaa qutiluu, manay dhinteen labana dileen. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u tilmaamayaa qul low kuntum fii buyuutikum labaraza aladiina kutiba calayhim alqatlu ilaa madaajicihim. waar xataa guryihiina haddaa ku jirtaan intii wakhtigu ka dhammaatay geeridu way u iman lahayd baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. saa awgeed low waxay culamada qaar yidhaahdaan mawducu tacliimkuunbay ku fiicantay ayaa la isticmaali karaa. oo maalan jaamacad baad ka soo qalin jabisay, wixii aad barataa marketka aan shaqo ku lahayn, qof yar baa ku yidhi ila tale, markaasaa waxaad ku tidhi maanta haddaan jaaniska haysan lahaa low kaan
دان شارس كاه يصلها كان ما قال لنا كاسن قال له وللتعليم قف كم بعد ربطينا ترى هذا والنتيجة أنا وضدنا صوب مرة يوم في عينيه واحد سكوت إذا ما حي كان كلينا ساس الدرادات بالنبي لها لو استقبلت من أمري ما استدبرت مركي أيوت المامي دتكي صاح الدي عمرضا ما حاجة صاح الدي حلالو بكروي هدي جودي هدات هدي وضم حلالو ما بيصير هذا أنا أرنكيك هذا وحي صعدا في هذا يبلاب ملها بالنبي لي هدي أنا ما صاك حيين dadkana waa la xalaaloobi lahaa buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam culamadu waxay yidhaahdaan markaa min baabi tacliim iyo meelaha hadday tahay waa bannaan tahay laakiin baabu calaacalka hadday tahay bay leeyihin ma bannaana oo waa maxay qul maa shaaa allahu kaan waa inaad rumaysataa wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah ina allaha kaana caliiman xakiima wixii tegey waxba kama bedeli kartid maadaama aanad waxba ka bedeli karaynin ilaahay wuxuu tilmaamayaa wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah ilaahay wuxuu doono mooyaane wax kaloo idinku dooni kartaan ma jirto ina allaha kaana caliiman xakiima bale waxaad ka calaacalayso waxaaba laga yaabay khayrku saa ku jiray wacasa an takrahuu shay-an wa huwa khayrun lakum waxaan kusoo koobaya markaa xadiidka dhammaantiiba nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay mu'minka waxtarka ah ee nafciga leh ee xooggiisa iyo caqligiisa iyo wixiisu qabanayo nashiidka ku firfircoon qawiga ah ayaa ka khayr badan mu'minka daciifka ah mu'minnimaduna dhammaanteed waa khayr marka horeba dardaarankaana weyna siiyey wixii ina anfacayana inaynu samayno ilaahayna inaynu gargaarsanno عكسك يا كسلك يا وحنا إن نسكدينه وإن أصابك شيء فلا تقول هدي وحسدي أتربتين نتيجة ودع ويدنا هأوران نبو نبوي عليه الصلاة والسلام هذا صيدا يسيدا يلي لها لكن واحد هذا قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين